السلام عليكم أصحاب تقول شجال إيمسجر أد هدف سميستي أديكو حماسة وهاي أو ujeedooyin kale kadibna aad ka raacday samaynta hadafkaas laga yaabaa mashquulka adduunka iyo mas'uuliyadaha ku saaran inay ka mashquuliyeen samayntiisa ama waxaaba laga yaabaa hadafka inuu kaaga jirto shuush oo saad u samayn lahayd sababtaad u samayn lahayd iyo waqtigaad samayn lahayd aynan ku caddayn weli waxaan muuqaalkaani kaga hadli doonaa faa'iidooyinka uu leeyahay inaad samaysatid hadaf iyo tallaabooyinka kaa caawin kara inaad gaartid hadafkaas waa walaalkiina iyo saaxiibkiina shuuta oo idin leh daawasho faa'iido leh faa'iidooyinka uu leeyahay inaad hadaf samaysatid inaad lahaatid hadaf oo si wanaagsan loo qeexay wuxuu kugu soo kordhinaa laba shay kow inaad ogaatid waxaad rabtid waliba aad awood u lahaatid inaad sawiratid shaygaas labo wuxuu kugu dhiirigelinayaa si xamaasad leh inaad ku gaartid waxaad ku haminaysid waxaa marka caqabad noqon kara inaad leedahay ahdaaf oo tashuush ku jira sida inaadan ogeyn meelaad ka bilowdid saad u bilowdid ama natiijadaad ka leedahay oo weli ku cadeen tusaale ahaan inaad tiraahdid waxaan rabaa inaan booqdo wadamo badan hadafkaas oo kale waa hadaf tashuush ku jira oo aan cadeen wadamadaad rabtid inaad booqatid waa kuwe xaggay ku yaalaan ma Asia ma Africa ma Yuruba ma wadamada korka sii jira iyo sababtaad u booqanaysid maxay tahay adigoo intaas su'aal ka jawaabin way adagtay inaad hadafkaasi gaartid maxaa yeelay meel laga bilaabo iyo wada loo raaco ma laha laakiin haddaad ku jawaabtid waxaan rabaa inaan soo booqdo wadamaha ku yaala Aasiya oo kala ah China Thailand Vietnam iyo Malaysia oo ah wadamo isku dhow sababtoo ah waxaan jeclahay inaan arko dhaqankooda iyo dhismooyinka qadiimka ah ay dhiseen dhowr sano ka hor sida derbiga weyn ee Shiinaha waxaan rabaa inaan aado markaan shaqeysto sanad iyo bar oo aan aruursado miisaaniyad ku filan safarkaasi waxaa jira 4 tallaabo oo kuu fududeyn kara gaaritaanka hadafkaaga waxayna kala yihiin positive immediate concrete iyo specific hadafkaad samaysanaysid waa inuu noqdaa hadaf oo positive ah oo markaad samaynaysid xamaasad ku gashaa oo baahi ay ku qabataa ma aha inuu noqdo wax aad ka baqaysid oo markaad soo xasuusatid kunigii jibiye intaad dhihi lahayd waxaan rabaa inaan ka baxo caajiskan aan ku jiro maalin walba waxaad ku bedelan kartaa jumlad xamaasad ku gelisa sida inaad dhahdid waxaan rabaa inaan jawi bedeshto saan ula kulmo dhaqan cusub iyo dad cusub tallaabada labaadna waa immediate oo u taagan waqtiga uu qaadan kara gaaritaanka hadafkaad leedahay waxaa laga yaabaa gaaritaanka hadafkaaga inuu qaato dhowr bil ama sanado sidaa darteed ma anfacay inaad dib u dhigtid ahdaaftaada waxaa habboon samaynta hadafkaaga waqtiga hadda la joogo inaad falgashid oo aadan dib u dhigin haddii kale waxaa dhici kara laba shay gaaritaanka hadafkaaga inaad ka daahdid oo aad dib ugu dhacdid ama inaad iska ilaawdid oo aadan samayninba wuxuu leeyahay David Allen qoraaga buuga loo yaqaano Getting Things Done maskaxdaada waa inay fikrado soo saarto ma ahan inay hayso sidaa darteed waxaad ku dadaashaa fikrad walba kugu soo dhacda iyo hadaf walbaad leedahay inaad qortid oo sida ugu dhaqsiyaha badan ugu fulisid tallaabada saddexaadna waa concrete oo micnihiisu yahay hadafkaaga inuu noqdo wax la taaban karo oo aad awood u leedahay inaad gaartid oo aad ku guuleysan kartid inaad tiraahdid waxa leen rabaa inaan barto ma aan hadaf la taaban karo laakiin haddaad tiraahdid waxaan rabaa inaan barto cilmiga caafimaadka iyo xanaaneynta xoolaha waa hadaf la taaban karo oo leh waddo loo maro tallaabada afraadna waa specific oo micnihiisu yahay inaad si gaar ah hadafkaad leedahay u qeexdid oo aad u kala dhigtid waxaad rabtid goortaad rabtid iyo sababtaad u rabtid inaad si gaar ah mid walba ugu jawaabtid sidaan u sharaxnay tusaalihii la soo dhaafay ahdaaftaada waa inay ku hoos imaadaan oo adiga maamusha wax walba u baahan inaad samaysid maanta oo aad awood u leedahay samee waxaadan awoodina ilaahay tala saaro oo aad si u daa waxaana rabaa inaan kusoo gabagabeeyo hadal walba Ibraahim al-Fiqi ilaahay ha u naxariisto aqliga waa sida magnetka ama birqabtada oo kale markuu arko qofkii lahaay oo ahdaaftiisa gaarayo wuxuu bilaabaa inuu soo jiido dadka iyo mawaaqifta iyo xaalad walba ku caawin karta inuu hadafkiisa gaaro ilaahay hana wada waafajiyo wax walba khayrkeena ku jira adduunyo iyo aakhiraba waxaan aad kaaga mahadcelinaa waqtigaad ila qaadatay waa shuto ku leh mustaqbal wacan